magacayga waxaa la yiraahdaa Fartoon Axmed Cali waxaana ka codsanayaa gabar baa laga haystaa oo Liibiya laga haystaa magafa muddo 5 bilood ah lugtana way ka jabantahay madaxana way ka jabantahay marka dawladda waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanayaa ciidanka Soomaaliya oo qalabka sida wasiirada xildhibaanada intii maaragtay wax gasho oo maxay jirkoodu naxaayo gabadhaas inay iga sii deeyaan anaga dad waxay sameeyeen dad iska rafaadsan masaakiin aanahay gabadhu agoon weeye waxaan ku leeyahay dhibaatadaas aan haysato magafi hariyaha meel soo wacaya hariyaha meel soo waxa uu leeyahay 9300 gabadhaas maaragtay maxay tahay ka dhiib weysad aakhirka kaliyaha kala bixi doona gabadhaadan adaa dishay nasiib darradaas aday kugu dhacaysaa marka waxa waaye inay wax naloo qabto ayaa dawladda ka codsanaya Soomaaliya dhibaato aan haysato gabadha agoon weeye aabaheed waa la waayay gabadhi markii la soo sheego god ku dhacay meel ka baxay ma naqaano marka waxaan codsanaynaa in maaragtay nal caawiyo qof walba oo bilaadan oo Soomaaliya joogto ama dibadda ama dalka inay caawiyaan dhalinyarada Soomaaliya waxaan dhihi lahay hadii maaragtay wax ay maqlayaan inayna tahriibin oo wadankooda ka bixin oo guriga hooyadood iyo maxay ahayd wadankooda ay ku dhintaan oo wada shisheey waxba ayna ka raadin